dowladda oo hubsiini doonto guddoomiye xaafadeedyada waqooyiga dalka. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran Professor Kithure Kindiki ayaa amar ku bixiyay in la turxaan bixiyo guddoomiye xaafadeedyada ismaamulada gobolka Waqooyi Bari iyo ku-xigeenadooda. Waxa uu sheegay in guddoomiyaasha dowladda dhexe ku matalo ismaamulada xoolo dhaqatada, taliyeyaasha booliiska iyo guddiyada ammaanka ee dowlad deegaanadan ku amray inay turxaan bixinta gudagalaan. Ujeedada laga leeyahay qorshahan ayuu wasiirka ku sheegay in guddoomiye xaafadeedyada la hubeeyo si ay saraakiisha ammaanka garab ugu siiyaan la tacaalidda dhaca xoolaha iyo falal dambiyeedyada kale. Barnaamijkan ayaa laga fulinayaa qaybaha kale ee dalka ay dhacdooyinka noocan ku soo noqnoqdaan. Kithure Kindiki ayaa sidoo kale xoojiyay hadal uu horey u jeediyay oo ahaa in guddoomiye xaafadeedyada la siini doono ciidamo amni oo kala shaqeynaya adeegyada dowladda ee ay ka hayaan tuulooyinka. Arrintan ayuu shaaca ka qaaday xilli uu shalay gaaray ismaamulka Wajeer.